wasiirka xogeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta ka mid ahaa hormo wasiir ah oo golaha wakiilada Soomaaliland ay ansixiyeen ayaa ka dareen celiyay kadib markii golaha wakiiladu ay ansixiyeen sidoo kale waxa uu mahadcelin gaar ah u diray guddida maaliyadda ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaana hadaladiisa ka mid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين waxaan doonayaa inaan halkan kelmad mahadnaqa uga jeediyo golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta wasiiraan ka mid ahay 11 wasiir oo ka mid ahay ansixiyay xildhibaanada markaa si guud ahaan gaar ahaan maxaaday guddi hoosaadka maaliyadda iyo dhaqaalaha oo hore noola kulantay iyagana si gaar ah ugu mahadnaqayaa dowladnimadu waxa weeye waa saddex dhadhaar xukuumadda oranaka ah golaha sharci dejinta ah oo maxay golaha maanta naansixiye iyo maxay iyo golaha garsoorka marka wada shaqeyn baa naga dhaxaysa golaha maxay wakiilada waliba gaar ahaan ka wasaaradda maaliyadda ahaan waa golaha maxay si guud iyo gaar ahaan guddida maaliyadda iyo dhaqaalaha oo miisaaniyadda aanu ka wada shaqeyno xisaab xidhada ka wada shaqeyno shuruucda maxay reformka ee dalka maxay dib loogu horumarinayo maaliyadda dalka aanu ka wada shaqeyno haday tahay shuruucda cashuuraha shuruucda wax soo iibsiga shuruucda maxay hanti dhowrka maxay ka gudaha iyo ka externalka aba hanti dhowrka maxay guud marka waa wada shaqeynta wasaaradda maaliyadda iyo golaha wakiiladu waxa weeye waa shaqo maxay mugle anaguna wasiirka iyo anigu baanu diyaar u nahay inaanu si maxay mugle oo la shaqeynaa maxay xildhibaanada golaha wakiilada anagoo ku wada shaqeynana maxay danta qaranka iyo maxay horumarka Soomaaliland oo si wada jiraan iskaga kaashano mar labaad waxaan ugu mahadnaqayaa xubnaha maxay golaha wakiilada iyo guddi hoosaadka maaliyadda iyo dhaqaalaha waqtigooda maxay ay noo hureen iyagoo si fiican oo sharaf ku jirta nin walba CV-giisa iyo taariikh nololeedkiisa iyo wuxuu soo qabtay iyo wuxuu qaban karaba maxay qiimo Maxamed Jaamac Umal GTN TV Hargeysa